السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ورقسان أصحابي ملك استوى جوكتان warar cusub baan idin wadaa wararkii ugu dambeeyay tan iyo intaynu kala maqneen warkii degdeg ahaa macluumaadkii ku jiray waan hubaa inaad in badan ka faa'iideysateen dhammaan wararkii aan soo gudbiyo oo dhan qofkii aan daawan uu daawan karaa haddaba warkan waa duqeymihii xoogga lahaa markii ay yaraadeen kadib maxaa dhacay Netanyahu halkee buu ku dambeeyay waatii barnaamijkan kii ka horeeyay aanu kaga hadalnay meel loo maleynayay inuu ku jiro in nagta laga saaray xaaladda guud waa sidee ciidanka ilaalada kacaanku maxay yiraahdeen tafaasiilo badan oo wixii soo kordhay ayaan idin hayaa haddaba marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa warar kala duwan oo Al Jazeera ay qortay goordhow oo ah waqtiyadii ugu dambeeyay ee hadda intaynu kala maqnayn wararkii soo kordhay haddaba warka ugu horeeya Jazeera waxay leedahay masdar ama warbixin laga helay dhinaca ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay uga digayaan Israa'iil inay bartilmaameedsato goobaha dhaqaalaha wakaaladda wararka ee Faris ee laga leeyahay waddanka Iran ayaa waxay sheegtay in ciidanka ilaalada kacaanka Iran ay Israa'iil uga digayaan inay bartilmaameedsato goobaha dhaqaalaha iyo goobaha muhiimka ah ee halbowlayaasha waxayna sheegeen haddii ay taa isku daydo inuu noqon doonto qalad istaraatiiji ah iyaduna markaa ay ogaan doonto dhibaatada ay geysato warka kale ee soo kordhay intaynu kala maqnayn waxaa ka mid ah taliyaha booliiska magaalada Tel Aviv ayaa sheegay in xogaga booliisku ay ka qayb qaadanayaan badbaadada dhibaatada gaartay shacabka Tel Aviv iyadoo la sheegay waxyaabo aanay weligeed arag Tel Aviv inay la kulantay oo markaa si fiican loo garaacay haddaba wuxuu sheegay inay la kulantay mandiqada ama deegaanka Tel Aviv la yiraahdo dhowr gantaal oo uu sheegay inay markaa dhibaato badan iyo burbur u geysteen dabaqyo badan dhammaantood ayay burburiyeen kuwa kalena waxay sheegeen in dhibaato kale ay soo gaartay haddaba dhanka kale ciidanka Israa'iiliyiintu waxay sheegeen inay ka hortageen ku dhawaad 100 gantaal oo Iran ka yimid afayeenka ciidanka Israa'iil ayaa arrinkaasi sheegay wararka kale ee ugu dambeeyay ee soo kordhay waxaa ka mid ah ciidamada Israa'iil ayaa waxay sheegeen inay ugu baaqayaan shacabka Israa'iil inaanay sawirro ka qaadin sida ay yiraahdeen goobaha ay sawaariiqda Iran burburisay waxay sheegeen taasu inay dhiirigelin u noqonayso cadawga sida ay yiraahdeen waa markii ugu horeysay Israa'iil ay sirteeda banaanka keento oo dadka ugu baaqayso ay leedahay sawirraha ka qaadina meesha ay burburku uu ku dhacay haddaba joornaalka Israa'iil ay leedahay ayaa wuxuu leeyahay heegan ayay galeen diyaaradaha dagaalka Israa'iil samada deegaanka la yiraahdo Eilat iyadoo laga baqayo dufcad kale ama koox kale oo sawaariiq ah inay dhanka Iran ka iman doonto haddaba waxaa la sheegayaa tirada dadka dhaawaca ilaa hadda ay sheegeen 22 qof Israa'iiliyiintu inay markaa yihiin Netanyahu ayaa isaguna wuxuu hadlay hadal kooban markii hadal hayntu ay badatay oo leeri meelihii uu ku dhuuman jiray ayaa la garaacay ayuu soo duubay video yar isagoo sheegay inuu kula hadlayo shacabka Iran wuxuuna sheegay hadafkoodu inaanu ahayn shacabka ee balse uu yahay maamulka wuxuuna ugu baaqay shacabka Iran in hadda uu yiri waa daciifay Iran maamulkeeda ee ka faa'iideysta ee rida ayuu leeyahay haddaba dhanka kale warbixinada soo kordhay waxaa ka mid ah Netanyahu waxa uu sidoo kale warkiisa ku sheegay in ciidankiisu ay burburiyeen inta badan sawaariiqdii balastiga Iran weeraradii ugu dambeeyay haddaba warar kale oo soo kordhay iyana oo hadda soo baxay waxay sheegayaan wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz ninka la leeyahay wuxuu sheegay Iran inay ka gudubtay qadkii guduudnaa oo ay laysay dad rayida oo markaa ku nool Tel Aviv iyo meelo kale wuxuuna sheegay in markaa ay sii wadi doonaan inay difaacaan muwaadiniinta Israa'iil ciidanka Israa'iil isla markaana ay dusha saaran doonaan mas'uuliyiinta Iran waxa ay sameeyeen sida uu yiri dhanka kale wakaaladda wararka ee Tasniim ee waddanka Iran ayaa waxay si rasmi ah u sheegtay inay Iran soo riday 2 ka mid ah diyaaradaha dagaalka isla markaana ay markaa qafaalatay oo ay qabsatay mid ka mid ah duuliyaashii diyaaradaasi sida ay markaa sheegtay wakaaladda wararka Iran ee la yiraahdo Tasniim inay sheegtay
haddaba dhanka kale waxaa la sheegayaa wararka cusub ee soo kordhay waxaa ka mid ah mas-uul israa'iiliya ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ay ka qayb qaadanayaan difaacidda israa'iil oo ay gantaalahooda ka hortegayaan gantaalaha iiraan dhanka kale waxaa la sheegayaa ciidanka israa'iil inay markaa beeninayaan in wararka sheegaya in laga soo riday diyaarado ay leeyihiin waxaasu waxba kama jiraan kanaalka la yidhaahdo israa'iil ayaa isaguna wuxuu leeyahay 150 ilaa 200 oo gantaal ayaa iiraan laga soo riday waxaana uu sheegay in badan oo ka mid ah inay ku dhaceen 9 gobol oo ka tirsan israa'iil oo markaa ay burbur xoog leh ka geysteen waata marka warbixinadaas waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyay oo hadda aan soo ururiyay ee dhacay marka dhowr qodob baan rabaa inaan si gooniya u faahfaahino laba waraa isdaba socota oo muhiim ah iiraan wakaaladeeda wararka tasniim waxay leedahay laba diyaarada soo rid duuliyihiina waa qaban israa'iilna waxay leedahay waa been dhanka kale waxyaabaha la yaab kale ee laga diiwaan geliyay warbixinadii ugu dambeeyay israa'iil markii la kululeeyay caawa waxay leedahay dadka sawiraha ka qaadinina meelaha la duqeeyay ee holcaya sawirha ka qaadinina maxaa dhacay cadawga wuu ku farxayaa maxaa dhacay markay hadalkaas leeyahay baraha bulshada oo dhan waxaa qabsaday sawirada burburka loo geystay israa'iil meelaha la gubay guryaha la dumiyey dadkii yaaba social mediaha dhigay markaas waxay leeyihiin war hadhiginina war ilaaliya ceebteena noo qariya jugta hadayna gaartay waxaasay marka ka hadlayaan dhanka kale waxyaabaha muhiimka ee laga hadlayo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta booliiska ninka ugu sarreeyay magaalada Tel Aviv wuxuu yiri ciidankeena ku darnay kuwa gurmadka dadka u sameynaya burbur ayna weligeed arkina ku dhacay Tel Aviv uu leeyahay dabaqiyo kaamila burburay gantaalaha ka hortaga Israa'iil waxba way tiri waan kuwa ciidaas lagu soo firdhiyay 200 oo gantaal maxaa laga qaban karaa dee u badato 100 aan qabaneen 100kii kale waa xaroodeen marka waxa leeyahay xataa Mareykanka ka qayb galaya difaacidda wixii oo dhan xaalku halkaas uu maraya marka wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil waxa leeyahay duqeymo culus ayay la kulantay haddaba waxay sheegeen ciidanka Iiraan waxay yiraahdeen 2 jeer ayaa caawa duqeyne yiraahdeen wasaaradda gaashaandhigga marka maxay bartilmaameed u tahay waxaa ku yaala wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka ayaa ku yaala saraakiisha ku sugan waxaa ku yaala godad dhulka hoostiisa oo madaxdu ay ku dhuuntaan hawshaas jirta marka hadda waxa leeyahay Netanyahu wuxuu telefoon kula hadlay Trump iyo isagu waxay ku wada hadleen wali tafaasiil badan iyana lagama hayo waxa sidoo kale Netanyahu uu qaban doono kulan aan la ogeyn halka uu ku qaban doono iyo sida uu qaban doono haddaba arimahaas oo dhan iyaguna waxa ay saaran yihiin miiska oo laga hadlayaa afayeenka ciidanka Israa'iil oo goordhow isaguna hadlay wuxuu leeyahay waxa laga baqayaa Israa'iil mar kale inay weeraro kale dufcad kale gantaalaha nagu soo qaadaan haddaba wararkii ugu dambeeyay inta aynu ku soo gabagabeynayna waxaan wixii soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa haddaba fadlan dib ugu laabta inta aan daawan dhammaan barnaamijyadeedii warkii degdega wixii oo dhan macluumaadyo kala duwan ayaa ka helaysaa meesha xaalku marayo halkaa ayaynu kasii wadi doonaa haddii warar cusub oo dheeraada ay soo kordhaan inkastoo hadda waqti dambe ay tahay Soomaaliya laakiin waa isku dayi doonaa haddii wax weyn ay dhacaan inaanu idin la wadaagno barnaamijkeygii koobnaa ee aanu ku soo qaadanay wararkii ugu dambeeyay duqeymaha Iiraan ay ka geysatay Israa'iil gaar ahaan Tel Aviv inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kasto aad joogtaan nabadgelyo